nin Soomaaliya oo ku jaadka cuni jiray kamid oo Mooryaantii kamid aha amaan loo noo waramay marka wuxuu yiri jaadka xumaantiisu ka sheekeenayo waa ninka tooba keenay wixii waqti wuxuu yiri anoo baabuur tignika saaran si fiican u qayilnay markii dambe wuxuu yiri qissa nagu dhacdo yiri xamar dhexdiisaan maraynaa yiri qoryaan wada wadanaa markii dambe uun marqaankii wuxuu tusoo yiri ilaa inaan dadka iska risaaseeyaa marqaankii tusoo yiri xabad iska hurguf ammaankan qorgi ilaa ka furay xabadan hurgufa hawri dadkii waa isdardareen baabuurtii waa kala carareen dadku waa isjiirayaan anigu marka iskuma haysto yiri waa xabada rida inaan anigu ahay iskuma haysto yiri waxaan isleeyahay yiri dadka muwaaleeyeen dadka yaa cayrsanayaan isleeyahay dadku maxay la cararayaan ilaa qorgan rishada hayaasan dadka xabada kulli saahay asay dadku isbuuraayeen dadku iska cararayaan ilaa markii dambe wuxuu yiri qoriga xabada u dambeeyay ka dhacday oo jiqiiri qorigi xabada u dambeeyay ka dhacday si hadaan fiirsh qorigu sili soo balhaay eberba waayaba daba jeexo wata aasoo umada ku hurgufa warna kama hayo inuu waxa xabada dadka ku hurgufa isaga ay yihiin oo ka joojiyo umaay meeshaas waxba ka dhacay yiri ala kulli kadib markaas kadib aan waxaan ku fakaro yiri jaad inaan iska dhaaf wax kale waxaas niima geysan yiri waa khamrada iyo jaadka ninka la yiraahdo Uthman ibn Affan qisal la yaab loo sheegay oo wuxuu yiri ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith inay tahay xadiidka nabiga kaleey salatu wasalaam Uthman wuxuu yiri ka fogaada bahasha maxay yeelay waxyaabaha xun oo dhamay hooyo u tahay kadibna wuxuu ka waramay dadkii hore nin kamid aha oo caabidaha qisa ku dhacday wuxuu yiri dadkii hore nin kamid ah oo caabidaha jiray islaan marka aan fiicneen oo ciyaal suuqa oo zaaniyad waxay go'aansatay inay ninkaas raahibka oo caabidka fidnaydo fartiinay u dirtay caabidkii ya sheekh waxay tiri hay yimaado sheekhu danan kale yahay danta culimada laga yeesha kamid ah oo waxay tiri waxaan rabaa inuu marqaati xambaaro inuu wax iga marqaati kacaan rabaa maadaama ahlu diin yahay hay yimaado ninkii caabidka wuxuu siri mas'ala diineed weeye gabadha u tag ninkii dhowr albaabooda la soo marsiiyay caabidka aqalka salkiisa iyo daarta salkeeda ayadoo jiifta ama fadhida aan ninkii raahibka u tagay cidii fartiinta u geeyday raahibka waa iska dirta albaabadii dhamaana waa la soo xiray kadibna waxay tiri sheekhow dan gaara kaama lahayn marqaati waxa laga kacana meeshan ma yaalaan waxaan ka rabaa maanta waa lagu hayaa sheekhi raahibka ay kuleeda islaantii faajirada ahay laba arimoon kala dooro gurigeygaad ku jirtaa inaan qayla dhaanshoon ku fadeexeeyo oo waa ikufsaaya aan ku iraado oo sumcadu ka dhacdo waa leega yeelaa si gurigeygaad ku jirtaa qolkii u dambeeyayna waa ku jirtaa albaabada dhanna waa xiran yihiin iyo saddex arimoodon ku bandhigi doono inaad mid kamid ah sameeyso wuxuu yiri fadeexa ma fiicnee bal saddexda arimood leedahay fadeexada waa looga baxsaa mid kamid ah hadaan sameeyo bal saddexda arimood ee tiri saddexda arimood koo waxay tiri qamradan meesha taala inaad cabto waa mid labaad canugaas yarka oo saqiirka ah oo meesha jiifa inaad disho tan saddexaad waa inaad xumaan ugu samayso waa waxay ugu yeerteen tan saddexaad waa inaad iga sinaysatay tir ama saddexdaas mid sameey ama waa qayla dhaamina waana baroorana maryahana waa tuurana waa ikufsadana waa leey sumcadiina way ka dhacday markaas sumcadu in dhacay waa xaqiiqo oo dadku ay leeyihiin sheekhi maanta waa taraaraxay siyaan fiicneen oo yeelay islaantii zaaniyada ahayd ka maarmi waayay wuxuu is ooyisiiyaba hadduu si walba dadka ugu sharaxo waxa jiray xaqiiqadana in dadku ay daahirkaas fiirayaan waa iska cadda sumcaduna wax la ilaaliyo sheekhi waa fakar ninkii caabidka saddexdii arimood oo fadeexada looga baxsanayay mid kamid hadii la sameeyo oo saas u fiirshay wuxuu sii horta dilku waa qatar zinaduna waa qatar kale biyahan inaad cabto uu fudud meesha biyahan caba hawri cabay tiri waayeen wax yar ka siiday biyii marka wax yar ka cabay khamradii daroogadii gaartay waa u dhadhantay markaas uu yiri isoo dar galaas kale khamrada oo isoo badi khamradii loo badsi asaga is waraabshay markii dambe markuu si fiican u daroogoobay oo khamradu jirkii si fiican u gaartana islaantii ka kor dhacay waa wixii islaantu la raadiyay dabankii markaan ay leesh islaantii markuu ka kor dhaco xumaanta ku sameeyay canuga meesha jooga canugii waxay tiri naga astur asagana canugiina madaxu ka kasi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un bal ninkan day saddexdii arimood oo loo bandhigay tii uu sir waa u fududahay oo khamra cabidaheedu bilaabay tiyaana wixii gaarsiiday labadii kale inay ku dhaco khamradii markuu cabay islaantii waa u booday islaantii hadduu xumaan ku sameeyana canugii waa u dilay saddexdii waa ku dhacay
مصيبة وهي مركب باشاني ومفتاح كل شر وأنا أم الخبائث يمن تأكتو ذا ما دام جاتك يادو بيرتان وحلقة يا جاتك وحرام أكتو ذا بين عيبكتها إن بدن أيه كميدا علماء ذا كميدا وحب لقى يا بين دهان جاتك اللي سكلافو أبي إسيران كسو قارنا إذا الله عناه وضن كدنا والله بيراه هذا جاتك وجيست هذا أركتو واديابه يمن تمرك جاتكو dhibaatooyin fara badan u geystay iyo burbur fara badan u geystay annagoo safar hadda koor aan caasimada Yamaneed oo Sanca kontaroolkeeda oo kontaroolada ugu culus aan soo marnay ani nin kale culuma baabuuran saarana baabuurka waxa nala saaran niman Yamaniyiin ah baabuurkii la baaray oo kontaroolkii markii magaalada la soo galayay waxa laga baaray in gaariga hubsaareen intay baaritaankii iyo ku jireen waxa noo sheekeeyay nin Yamani oo gaariga nala saara wuxuu yiri marka Yamanta waxa qarribay oo fucud ka reebay wirijaadka amnigooduna inta badan wuxuu la sugmi laayahay waa jaad cunido yiri hadda wuxuu yiri hubay naga baarayaan anaga waxaana dhacdo yiri ayaan dhaweed ayagoo kontaroolkan jooga oo hub baara waxa soo maray yiri taangiya yimid yiri taangina waa taqaanin waa kaaraha silis kale oo dhunta dheer leh oo madaafiicda culus ah kulligiisa wada hub ah hubka waliba kiisa culus ah taangiga kontaroolka soo istaago yiri nin marka canku intaas jiro oo taqsiintu ay u taagantahay taqsiinta waliba ay waa dheereeyaan markaas ishay waxa isla qalloocaa iyo sanka iyo waxa dhan dhinaciis isku qalloocayaan dhinaca daanku jiray isku qalloocayaan ama taqsiintu saaranta waxa laga yaabaa laba marduufo jaada inuu canka ku aruuriyo suurtagal markaas hadaad aragto falxumada ninkaas waad la yaabay wuxuu marka nin noocaas soo istaago wili taangigi iyo ramram lahow soo ag istaagay taangigi bira koor go'an markaas uu nimankii la hadlay taangigi wati oo wuxuu yiri maakum silaax oo yiri wax huba ma wadaan wuxuu leeyahay ninkii taangigi wato leeyahay wax huba ma wadaan hub ma saaran yahay gaariga oo leeyahay warkaas si fiican ugu fiirsada waxa meesha taagana taangi aday kaara waa wax meesha taagan magaalada ku sii socda waa kaare waa hub la qaato midka ugu culus waay markaas uu taangigi wuxuu weydiinaa bastoolad ma wadaan aaka ma saaran yahay taangiga saas uu leeyahay maxaa ninkaas waxa ku kalifa isleedii khamrada iyo daroogada ku kalifta khamrada iyo daroogada markaa waa musiibo اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها